السلام عليكم أصحابتا أبو فلة ما صومالي با ومحي جنسية حسن سليمان oo loo yaqaano Abu Falla waa su'aal inta badan social media dhex wareegta siiba Soomaalida oo inta dambe sheeganaysa inuu Abu Falla yahay Soomaali haddaba muuqaalkan waxaad ku ogaan doontaa jawaabta su'aashaas ee yaanay mar dambe kugu soo noqonin balse fadlan dhamayso muuqaalka sidoo kalena like nagu sharaf haddii aad ku qanacdo jawaabta iyo cadeymaha aan ku soo bandhigi doono muuqaalkan Abu Falla qofka aan garanayn waa wiil YouTuber caan ah oo kaalinta labaad kaga jira kanaalada af Carabiga ku hadla isaga oo hadda haysta in ka badan 24 milyan oo qof oo ku xiran kanaalkiisa waxa uu ku dhashay degan yahayna dalka Kuwait wiilkan 24 jirka ah oo lagu yaqaan inuu caanimadiisa uga faa'iideysto inuu caawiyo dadka qaxoontiga ah ee ku tabaalaysan wadamada Carabta iyo Afrika oo ay ugu dambeysay maalmihii dhaweyd oo uu mar ururiyay 1 milyan oo dollar mar kalena ururiyay 12 milyan oo dollar isaga oo sidoo kalena hore masjid uga dhisay wadanka Mozambique meelo kalena ceelal ka qoday guud ahaanna ah mid aad loogu yaqaan hawlaha samafalka Abu Falla kanaalkiisa YouTube-ka waxa uu furtay sanadkii 2016 kadib markii uu dhameystay dugsiga sare duruuftuna ay u saamixi weyday inuu galo jaamacadda isaga oo labadii sano ee u dambeeyay horumar aad u weyn ka gaaray dhankaas YouTube-ka waana mid tusaale kuugu filan in waxyaabo aad marka hore u malaynaysa in ay ku xun yihiin laga yaabo in ay ku wanaagsan yihiin oo ay noqdaanba mustaqbalka wax noloshaada saameyn weyn ku yeesha tusaale ahaan TikToker-ka Khabi Lame waxa uu ku waayay shaqadiisii uu nolol maalmeedkiisa ku kabi jiray saameyntii masiibada cudurka corona bilowgii sanadkii 2020 laakiin ka fadhiisigii shaqadu waxa uu sabab u noqday in uu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu caansan caalamka oo ay ku xiran yihiin in ka badan 100 milyan oo qof iyo in uu noqdo milyaneer da'yar haddaba waxaan muuqaalkan kaga hadli doonaa kuna cadeyn doonaa Abu Falla jinsiyadiisa aniga oo cadeyn buuxda ku siin doona inuu yahay wiil Soomaali ah balse adnaha i weydiinin markaas qabiilkiisa waa qabiilkan ka dhashay ugu horreyn YouTuber Soomaali ah oo ay ugu horeysay gabadha iskale kanaalka Bati Bay ayaa hore uga hadlay in sawir yaraantiisii laga qaaday Abu Falla uu gadaashiisa ka muuqdo baati ama dirac meel saaran baatiguna uu yahay astaamaha Soomaalida lagu yaqaano iyagoo sidoo kale inoo muujiyay magaca ugu seefkaraysan walaashii oo laga dhex arkayay mid ka mid ah muuqaaladiisa iyadoo ay ugu qoran tahay Ifraax sida ay YouTuberadaasi ka hadleen magaca Ifraax waa magac la oran karo waa magac Soomaaliyeed waxa sidoo kale dad badani ay arkeen muuqaale hore oo uu Abu Falla ku hadlayo dhowr kelmadood oo af Soomaali ah mar uu ka hadlayay wadamada ay joogaan dad kaalmo uu ururinayay ka soo qayb qaatay تبارك الرحمن Soomaaliya wariya waan ku jecel yahay wariya wallahi waan ku jecel iyadoo haddana maalintii dhaweyd ee uu Dubai joogay ee uu ururinayay 12 milyan ee dollar oo in ka badan 2 jeer ku celiyay isla kelmadahaas adigoo isweydiin karaya ma saddexdan kelmadood oo kaliya ayuu ka yaqaan af Soomaaliga siiba waxa ayna ihtimaam gaar ah lahayd sida uu ugu soo boodayo marka uu arko ama uu maqlo magaca Soomaaliya oo uu u muuqdo mid aad u xiiseynaya micna gaar ahna uu u leeyahay tusaale ahaan mar uu wiil yar oo 12 jir Soomaali ah ku deeqay $50 uu Abu Falla aad ugu soo qayliyay sidii qof bixiyay lacag badan يقول عمري 11 سنة من الصومال الله يا الله الصومال اليوم الصوماليين ما شاء الله الله يوفقهم يا وري يا وري يا الله mana aha in aan yaraysanayo sadaqada uu wiilkaas yari jeebka walaaladii ka soo bixiyay oo waa wax aad u weyn iyo qayb kamid ah 12 milyan ee la ururiyay inkasta oo ayna dhici karta in ay daadiisa ahayd waxa muhiimada gaarka ah oo u siinayay balse waxaan uga socdaa inuu Abu Falla ay xiise gaar ah u sameynayso magaca Soomaaliya waxaase iyana jirta in dad Soomaali ah oo ku nool wadanka Kuwait ama guud ahaan Khaliijka ay qaar badan sheegaan in ay shakhsiyan u yaqaanaan qoyskooda yahayna wiil Soomaali ah oo ay xataa mararka qaar qoyskooda isku qabsadaan sababta uu u qarinayo jinsiyadiisa wiilka lagu magacaabo Umar Inshaar ee iska leh kanaalka Ogaansho waa YouTuber Soomaaliyeed oo aan ku wada naqaano inuu ku hadlo waxa uu hubo in ay yihiin xaqiiq oo kaliya waana influencer ku nool wadamada Khaliijka gaar ahaan wadanka Qatar mar uu ka hadlayay warbixin uu talooyin iyo naseexo ugu soo jeedinayo Abu Falla waxa uu yiri marka Abu Falla طبعا waxaan huba asaga ama xitaa qaar ehelkiisa طبعا inay af Soomaaliga fahmayaan طبعا xasanow qaramada midoobay ma ahan meeshii sadaqaad iyo zakaad dad muslimiin ay soo dirsadeen ma ahan qaramada midoobay meeshii loo soo marin lahaa waxaan filayaa in Abu Falla ama cid uun ka mid ah qoyskiisa uu af Soomaaligan aan ku hadlayo fahmayo okay maxaa ku jira halkan aniga iyo dadka ila midka ahi dabcan waxa ay hadalkaas ka dhadhasan karaan inuu Umar Inshaar uu wax uun ka og yahay waliba uu xaqiiqada u badinayo
cumar inshaarna sidaan hore u soo sheegnay wuxuu caan ku yahay runsheegnimada inkasta oo uu sheegay in ay tahay waxa uu filayo ee aanay ahayn wax uu hubo waxa kale oo laga yaabaa in uu hubo midaas ee uu sidaas u leeyahayba inuu ixtiraamayo go'aanka shakhsiga ee Abufalla uu ku qarinayo jinsiyadiisa inaan qaldanahayna waa suurtagal ee isug ha iga degdegin waxaa mar dhexda ahayd kulan waraysi ah oo ka dhacay Dubai oo uu wariyay YouTuber ah oo lagu magacaabo Anas Bokhash ku waraystay Abufalla waraysigaas oo ahaa mid aad u dheer waxyaabo badanna uu wax ka weydiiyay ayaa waxa uu Anas Bokhash odhanayaa isaga oo la hadlaya Abufalla sidaan ka akhriyay fayl uu ku xusan yahay macluumaadkaaga shakhsiga ah sida magaca da'da meesha aad ku dhalatay waxaa sidoo kale ku qornaa jinsiyadaada laakiin Anas waxa uu yiri intaanan ogaan jinsiyadaada xataa waxaan markii horeba iska sii ogaa inaad ka soo jeedid dadkaas maxaa yeelay muuq ahaan iyo qaab ahaanba dadka ka soo jeeda dalkaasi isma qariyaan aadna waad ugu muuq eeg tahay isaga oo Abufallana ku raacaya arrinkaas oo uu oranayo مثل ما قلت يا رجل بشكل يبين يا إلهي sidoo kale influencerka iskale kanaalka Hoosow Baro oo lagu magacaabo Usman Hoosow oo isna ku caan ah xaqiiqada iyo ka rusheegida fikirkiisa ayaa hore uga hadlay inoona iftiimiyay inta la sheegi karo ee hadalkani uu xoojin karo inuu Soomaali yahay iyo in kale balse waraysigaas dhexdiisa waxa dad badan aanay ogeyn ayaa ah in Anas Bokhash iyo kamaradiisu ay si tirig ah u khashifeen wadanka uu u dhashay Abufalla sababta oo ah Anas oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri dadkaas aad u dhalatay qaar kamida aniga oo Mareykanka jooga gaar ahaan meesha la yiraahdo Boston ayaanu ahayn ayuu yiri asxaab aad isugu dhow oo aanu kubadda wada dheeli jirnay isagoo waliba intaas ku daray in dhalintaas ay yaraantii saaxiibka ahaayeen ay dhammaantood jinsiyadaas ka soo jeedeen isaga oo Anas ah mooyaane isaga oo yiri xataa kelmadaha qaar ama jumladaha qaar ayaan ka aqaanaa luqadooda sidoo kalena waxyaabo badan ayaan ka fahansanahay sida cuntooyinka ay cunaan iyo dhaqankooda hadalkaas oo cadayn cad u ah inaanu Abufalla carab ahayn ee uu ka soo jeedo wadan luqado kale ku hadla Anas waxa kale oo uu sheegay in xitaa mid kamid ah asxaabtaas oo ay aad isugu dheeraayeen uu ka caawiyay inuu halkan Dubai u soo guuro oo uu soo raray macaaxaaskiisa iyo caruurtiisa oo uu hadda halkan kala shaqeeyo ilaa hadda waxaasaan soo sheegay oo dhami waa wax hore looga hadlay cadayn cadna kama heli karno laakiin waxa aan wali la isweydiin ayaa ah inaan ogaan karno dadkaas uu Anas sheegayo ee ay Boston ku wada noolaan jireen cid ay ahaayeen waliba gaar ahaan saaxiibkiisa gaarka ah ee u soo guuray Imaaraadka qofka uu yahay wali ma isweydiisay midaas waxa jira wiil ay saaxiib yihiin Anas oo Soomaali ah oo lagu magacaabo Nido Abdo oo Instagram-kiisuna kan ku muuqda yahay waliba uu yahay wiil ahaan jiray ciyaartoy waqtigii horena ay Anas ku wada noolaayeen Mareykanka oo sida aad ka arki karto sawirada uu soo galiyay bartiisa Instagram-ka iyo commentiska qaar uu ka bixiyay Anas aad intaba ka fahmi kartid inay asxaab ku ahaayeen Boston kubaddana ay wada dheeli jireen waliba aan kuugu dareen Nido Abdo hadda waxa uu degan yahay Imaaraadka oo u soo guuray waliba waxa uu hadda ama marar dhaweed ka shaqaynayay shirkadu iska leeyahay Anas Bokhash oo lagu magacaabo Bokhash Brothers oo uu u qaybsanaa marketingka isaga iyo reerkiisuna ilaa hadda waxa ay degan yihiin Imaaraadka wiilkaasi inuu Soomaali yahay iyo in kalena waxa aad ka soo hubin kartaa Instagram-kiisa ugu dambeyntiina waxaan rajaynayaa iyadoo aanay awal horeba wax badan soo kordhinaynin in la ogaado jinsiyadiisa oo ay ka muhiimsan tahay inuu yahay qof muslim ah oo horumar weyn gaadhay dad badanna caawiyay laakiin waxa ay ila tahay ama aan anigu fikir ahaan ku qanacsanahay in ay tani jawaab iyo cadayn u tahay doodii iyo sheegashadii dadka Soomaalida ee ahayd inuu Abufalla yahay wiil Soomaaliyeed waxa iyana hubaal ah in haddii uu mustaqbalka isaga laftiisu xaqiijiyo inuu Soomaali yahay ay su'aashaasi qancin doonto taageerayaashiisa marka laga reebo Soomaalida oo ay su'aal labaad ugu xigi doonto oo ah in ay raadiyaan qabiilkiisa iyo cidda uu kolba ka sii yahay markaad dhankaas ka eegtana waxaad bays odhanaysaa waxa roonba in aanu sheegin si kasta oo uu qariyo jinsiyadiisana waxa muhiim ah inuu sheegay inuu ku faano oo aanu marnaba ka qarinaynin qofka si shakhsi ah ula kulma inkastoo haddana aan arkay mar uu tirinayay wadamada laga daawado muuqaaladiisa isaga oo marka uu soo gaaro Soomaaliya ka dhex jaray muuqaal يمن السودان والولايات المتحدة الأمريكية فرنسا كندا بلجيكا النمسا إيطاليا موريتانيا الدنمارك فنلندا يونان أستراليا ma waxa la isdhihi karaa uu diidan yahay talow oo hadduu diidan yahay sawkan mararka kaleba kelmadaha af Soomaaliga ku hadlaya mise waxa la oran karaa xoogaa wuxuu saloogsan yahay kaalinta ay kaga jiraan daawashadiisa dadkii uu ka dhashay ugu dambeynna waxaan leenahay Abufallow waanu ogaanay inaad Soomaali tahay ee waxba saaxiib hanaga baydhbaydhine soo bayd wadi dhaafsatay soo bayd wadi dhaafsatay soo bayd